السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنة wanaagsan xiiso badan maanta waxaan dib ugu soo laabanay cashirkeenii ayaantii aan ku balanay inaan ka bilowno need and want. So waxaan rabnaa inaan marka kale ogaano labadan eray micno ahaan waxa ay kala yihiin. Let me get my color. Let me use blue. So we need to know need you want waxa ay kala yihiin inaan ogaano. Markaan ku yiraahdo I need a book ama aan ku yiraahdo I want a glass of water. What's the difference? Waxaan ku daraynaa noun or an infinitive. Let's see. We need food. Haddaan idhaahdo we need food, annaga waxaan u baahannahay cunno. Tusaale, need is a verb, isn't it? Waa wax verb ah. Action in an action verb horaan usoo baranay. So whether it's an action verb or non-action verb, arday ahaan adiga laga raba inaad fahanto. So verbka waa need. Need is a verb plus a noun food. So we need food. Waa we or a pronoun ayaa waxaan ku darayaa verb need plus noun of food ah. Then laakiin haddaan idhaho I want a sandwich. Want still waa verb, a sandwichna waa noun. Si fiican aan sula soconno. We need food. We anaga need waxaan u baahanahay food. I aniga want waxaan rabaa a sandwich. A sandwich kana la yiraahdaa baalka ismariska ah ee rootiga inta dhexda laga mariyo saddex saarayo. Okay. And si fiican u eg marka I need some water. Wuxuu yiri I need some water. Kan wuxuu yiri I want some water. I need some water. Aniga waxaan u baahanahay xig biyo ah. Kan wuxuu yiri aniga waxaan rabaa xig biyo ah. Okay, what's the difference? So which one is stronger between need iyo want? Yaa awood badan. Markaan idhaho I need some water. Waxaan u baahanahay wax yaro biyo ah. I want waxaan rabaa kas yaro biyo ah. Keba stronger? Which one is stronger, need or want? Keba stronger? Need is stronger. Need ayaa culays badan. Need waa wax baahi loo qabo. Wantana waa wax marka aad rabto. Okay? So verb plus infinitive. So haddii uu ahaa we need food oo verb aan isticmaalay hadda noun aan isticmaalay hadda aan adeegsada an infinitive. Infinitive maxaa waaye? We need to eat. So, we need to eat. A verb plus infinitive. Okay, so what is infinitive? Can someone define infinitive? Infinitive in form of verb or infinitive alone? Infinitive is a form of verb, yani in many languages badana loo adeegsado. So infinitives waxa waaye verb consisting of word plus a verb. Okay, a word plus a verb uu ka kooban yahay. That's what we call an infinitive. Wow, a verbal infinitive is a verbal consisting of the word to plus a verb. So infinitive marka waxaa la yidhahaa verb oo wato to eat, to walk, to swim, to play, to marry, to wash, and so forth and so on. Marka ficilka haddii lagu daro to, that becomes what? An infinitive. Okay, I want to eat a sandwich. So I need to eat a sandwich. Waxaan u baahanahay inaan cuno. I want to eat a sandwich. Waxaan u baahanahay aniga I want waxaan u baahanahay to eat a sandwich. Inaan cuno a sandwich. So let's have a practice. Pablo needs make lunch. Is it correct? It's no. Needs make. So he needs. Like magaca markuu yahay he doesn't. Yeah, needs s ma ku dari kartid. So Pablo needs what? Sorry. S oo ku daraysaa laakiin make tas ay waxaad ka dhigaysaa kii kale. So Pablo needs to make. So inta maxay dhaheen make lunch. So make tas verb kas waxaad ku daraysaa to si infinitive ay u noqoto. So Pablo needs to make lunch. The baby needs milk. Is it correct? Yes, it's correct. The baby needs milk. Anugu wuxuu baahan yahay caano. Alexandra wants go dancing. No, it's not correct. We say wants to go dancing. Alexandra wants to go dancing. Alexandra wants to go dancing. Alexandra wuxuu rabaa inuu aado dancing ama inuu ciyaarta qobka ciyaarka ay waxay rabaa dancing. Okay, would you like? Kaas meesha aan ku baxnay. When do we use would you like? Would you like gorma adeegsanaa? I would like a glass of water. Haddii need iyo want aan kasoo gudubno would like aan fiirinaynaa. I would like a glass of water. I would like. I aniga would like waxaan jeclaan lahaa
a glass of water لكن halkan jumlada maxaa lagu sii I would like a glass of water I would like a glass of water let us see for example I am thirsty anigu waan oomanahay maxaan dhahayaa I want a glass of water waxaan rabaa glass biyo ah I am thirsty I would like a glass of water so would like and want have the same meaning haddaan ku dhaha I would like waxaan jeclan lahaa glass biyo ah iyo I want waxaan rabaa glass biyo ah waa isla meeshi they have the same meaning but would like is more polite would like marka adeegsada ayaa waxay tahay more polite yani baarinimo ama si deganaan ama wanaag ku jira ay tahay laakiin I want waxay noqonaysaa inaan kugu qasbayo laakiin I would like waa more polite si deganaan weeyaan ama codsi ah I would like a hamburger I would like a hamburger you would like a hamburger she would like a hamburger he would like a hamburger we would like a hamburger they would like a hamburger so I you she he we they dhammaan waxay qaadanayaan would so would plus what in when you want to add now would you would is my days there's no final s so would no final s like no final s also so I would no final s like no final s so I would like my days I would like my days I would like my days so I would like would dana s ma qaadato like dana s ma qaadanayso for that matter I would like marka adeegsanayso then contraction of I would like aan fiirin marka I would waxaad u soo contractionaysaa I'd you would waxaad usoo contraction ku samaysaa ama usoo gaabinaysaa you would she would waxay noqonaysaa shield he would waxay noqonaysaa healed we would waxay noqonaysaa wheeled they would waxay noqonaysaa they'd okay would like plus infinitive marka aan ku darna hadday want plus infinitive haddaan ka dhigay then I would like to eat lunch I would like to eat lunch then would plus subject plus like so would you subjectiga would ka soo hormarayso would you like to eat lunch as a question markaad rabto inaad question ka samayso would da soo hormarinaysaa would you like oo la leedahay or would she like so in question form would comes before the subjectiga would ka soo hormarinaysaa markaas inaad su'aal ka samayso laakiin markay statement tahay I would like aad leedahay I would like so yes I would like to eat lunch I would like to eat lunch so waa ina contraction ku samaysaa I would saan uma qoraysid so waxaad leedahay so use along with would like questions so I would like to eat lunch so it's not contracted yes I would markaan jawaabta celinayo I would like to eat lunch so use along with would like question it's not contracted so let's practice Miriam wants a rose would like Miriam dash used contraction but the first one in full Miriam would like to have a rose or Miriam would like a rose then Miriam would like a rose they want flowers too they would like flowers they'd like flowers do you want a rose Sammy said do you want a rose then Mingfa said yes I do thank you Sammy said I'd like would you like a rose yes I'd like a rose yes I'd like a rose in the construction form so as barbar dhigna marka would like iyo like so would like was like I would like to play soccer so haddaa idhaha I would like to play soccer and haddaa idhaha I like to play soccer which is which so aan arka marka I would like to play soccer marka idhaha I would like to play soccer waa want to now or in the future waa inaan hadda rabo ama hadhow dambe mustaqbalka dambe inaan ciyaaraan rabo ama galabtoo kale I would like to play soccer laakiin I like to play soccer marka idhaha I like to play
وأنا ده I enjoy وان كهلا always usually and often مر والبا إن عياران جعلها I like وإن تكهش شيء أرجعشها مر والبا إن عيارته كرة حيسته أدو جعشها لكن مركا إرها I would like معناه وحوايا إن أباهنا هاي حد أما حد وتنبه. Okay, let's practice. She dashed to visit the moon. She would like to visit the moon. Do you dash to get the beach? Do you want? Do you like? Yes. Do you like to go to the beach? Do you like to go to the beach? Someday I dash to be a dentist. Someday I would like to be a scientist. Someday I would like to be a scientist. maalmo kadib ama maalmo soo socdo waxaan jeclahay inaan noqdo scientist. tani kulantadu waxay salan chapter 5 halkaas ku dhamaaday. tani kulantadu intaan u gudagalayno cashirkeeni ama chapter 6 geeni waxaan idinkaga tagayaa sida iyo nabadina. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.